السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال كسو دوادا ورك شبكة ورر تي في وبدادكم مغلي دونتانا waxaa kamida dadweyne careysan oo xirtay inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho iyo xiisad kacsanaan oo ka taagan caasimada gaari ay saarnaayeen dad shacab ah oo ay miina kula qaraxday duleedka magaalada Kismaayo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka qayb galaya shirka Tokyo ee horumarinta Afrika qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso labaan idin haynaa daawadayaal tan ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan faahfaahinna dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax galinkii dambe jimcihii ka dhacay deegaanka yaaq xaluul oo hoostaga magaalo xeebedka Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland qaraxani oo hamiina ayaa haleela gaari ay la socdeen dad shacab ah xilli uu ku socdaalay wadada isku xirta yaaq xaluul iyo magaalada Kismaayo wararka ayaa sheegaya in gebi ahaanba uu burburay gaariga la qarxiyay waxaana sidoo kale ku dhaawacmay ugu yaraan ilaa 3 qof oo kamid ah dadkii saarnaa baabuurkaasi qaar kamid ah dadka deegaanka oo isugu tagay goobta qaraxa ayaa gurmad u sameeyay dadka waxyeelada soo gaartay oo haatan lagu dabiibayo isbitaalka Kismaayo sidoo kale waxaa meesha ay wax ka dhaceen gaaray ciidamada danab oo howlgal ka sameeyay halkaasi waxaana gacanta ku dhigeen 2 qof oo tuhmanayaal saraakiisha danab ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inay ku guuleysteen soo saaraan miinooyin kale oo aan qarxin kuwaasi oo ay sheegeen inay dhigeen kooxda al-shabaab maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa aad u kordhiyay weerarada qaraxyada ah ee ka dhaca jidadka soo gala iyo kuwa ka baxa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose si kastaba ha ahaatee kooxda al-shabaab ayaa ku xoogan gobolada Jubbooyinka ee koonfurta Soomaaliya waxaana weeraro khasaare geysta ka fuliyaan deegaanada Jubbaland ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa xalay gaaray magaalada Tunis ee caasimada waddanka Tunisia halkaasi oo si diran loogu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha iyo wafdiga la socda ra'iisul wasaare Xamse ayaa waxaa garoonka ugu tagay oo soo dhaweeyay wasiirka gaashaandhigga Tunisia iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda dalkaasi ra'iisul wasaaraha ayaa ka qayb galaya shirka caalamiga ah ee Tokyo ee horumarinta Afrika kaasi oo maanta ka furmaya magaalada Tunis waxa uu socon doonaa muddo 2 cisho sidoo kale waxaa shirweynaha qayb ka madaxda Afrika iyo ururada ka jira qaaradda halka ra'iisul wasaaraha Japan uu uga qayb gali doona aalada fogaan araga dawladda Japan ayaa shirkani ugu talagashay inay ku xoojiso xiriirka ganacsi iyo midka siyaasadeed ee ay la leedahay qaaradda Afrika dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa intuu joogo Tunis waxa uu kulamo duceed la yeelan doona madaxda ka qayb galaya shirka caalamiga ah ee Tokyo ee horumarinta Afrika isagoo kala hadli doona maalgashiga dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee waa shirkii saddexaad ee noocan oo kale oo la qabanayo laga soo bilaabo ilaa sanadkii 1993 darawallada gaadiidleyda ka shaqeeya dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa maanta dhigay dibadbax ballaaran oo ay uga cabanayaan dhibaato ay sheegeen inay ku hayaan askarta dawladda Soomaaliya ee ku sugan caasimada dibadbaxa ayaa ka dhashay dil maanta loo geystay darawal ka soo baxay dekedda oo waday gaari xamuula kaasi oo rasaas ku furay askari ka tirsan ciidamada dawladda darawallada oo ka carooday dilka marxuumka ayaa xirtay wadada Fintuuna Oktoobar halkaasi oo ay ka dhigeen dibadbax weyn oo cabasho qaar kamid ah dibadbaxayaasha oo la hadla warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in marxuumka loo dilay bixinta lacag baada darteed siday hadalka u dhigeen ninkii labaad weeye oo laga dilo ninkii dilayna waa uu baxsaday wixii lagu dilaayana la rabay ayuu yiri mid kamid ah darawallada ka shaqeeya dekedda weyn sidoo kale waxa ay darawallada baaq culus u direen dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ka dalbadeen inuu wax ka qabto arrintaasi laga soo bilaabo Taleex ilaa dekedda waxa taagan askar haddaadan lacag siinin inay ku dilaan oo gaariga kala dagaan oo ku garaacaan weeyaan mudane madaxweyne codsi weeye arintani wax ka qabo ayuu yiri darawal kale oo ka hadla goobta dibadbaxa inta badan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dilal ka geysta gudaha magaalada Muqdisho xilliyada ay marayaan wadooyinka waaweyn ee ku dhex yaala gudaha caasimada waxa soo dhaxgalay dekedu ka soo baxay wuxuu yiraahday turismo daraal istaaga liir waa istaagka baakinka gala uu yiri jaamanka baa jidkanka baxa uu yiri intii aad loo kaadin waay waa ku baasa u siidad habadu dhaku dhahay haas aqli sanays ma noqo ninka askari waay meel laga soo diray ma lahay aqli ma noqo dadu ka dhashay meeshan isa aqli ma noqo waxaan ka codsanayna dawladda in ninkii gacanta noo keenaan waxaan garoona darawaliinta dekedda ka shaqeysanahay isagana waa ku dhibaataysanay magaaladan
rafaad inta leen ku qabnaa cadaalad xumaan nagu hayso wax allaale wixii jawi ay jirin iyo dawladda aan u sheegayna anaga wax allaale wax kasta ka dhacdaba wax allaale wax rabta noqoto maalin kasta nina naga dhinta anaga waxaasna waxaan anaga u dul qaadan karno manaan haddaan qori qaadayna loo sheego haddii kale aan imaano ummad ilaahay la midna dara waayo waxaan uga daran hamaalindaanaya in la rafaado ma rabno anaga canshuur wax li kasta waa dhiibnaa laamiga aan ku soona lacagana laga qaadaa hal xabba kale kama rabno anaga dawladda wax allaale wixii anaga dulmi nagu hay inay naga qabtaan aan ka rabnaa wax kalena kama rabno horta maanta waxa u taagannahay baqma waa dagaal maalin kasta lacagteenna aan lagu dilaa madaxweynaha waxaa ka codsanaa ninka maanta ninka naga dilay ka wartuna noo keeno midda labaad laga soo bilaabo taleex ilaa dekadda lagu imaado waxaa taagan askarta taagan waxaa waaye haddaadan lacag siinin inay ku dilaan oo gaari kaala degaan ku garaacaan waaye annaka ma doonayna maalin kasta lacagta a dhiibno canshuur u dhiibno in lagu laayo mudana madaxweyne codsi waa markaan codsigeena haddaa aqbali weydo waxaa waaye annaka waxaas annagaa naqaan waxaa kaa rabnaa inaa askartaa naga lexiso waxaa loo dilay ninkaan lacag isii wax kale maaha gaarigan waa canshuureen lacag isii shahaada waa waxaa loo dilay gaarigan gaari canshuuran waaye dekadda laga soo canshuuray meel kasta laga soo canshuuray waa la og yahay baarka lacag isii shahaada lagu dilay waa baahanaha shalay ma shaqeen jimco waaye lacag isii lagu dilay bayaanka waxaa waaye wuxuu yidhi baawarka xagga baakin waa loo baakimay buuga soo bixiyuu yidhi intuu buuga soo bixinaa dilaba aniga hadda wax indhayga aan ku arkaayey oo hadda goobjoog ma aanan ahaynin laakiin waxaan caddaynayaa in maalin walbo meeshaan caqabad gaadiidley ee haddaannahay ay nagu haysato oo waddada naloo taagan yahay 24 saac askarigii waddada taaganba uu isbaaro uu yahay yaa oo haddii aadan lacag siinin oo meesha subaritaankeeda oo warkaaga jiraba yaa dawladda waxaan ka codsanaynaa inay nidaamkaas ay wax ka beddesho oo muxuu ahay isbaarada ay ka qaado waddada oo meesha subaritaankeeda oo warkaaga jiraba yaa dawladda waxaan ka codsanaynaa inay nidaamkaas ay wax ka beddesho oo muxuu ahay isbaarada ay ka qaado waddada maxaa askari walba oo waddada taagan isbaaro u taagaya haddaadan lacag siinina meesha maritaankeeda ayaa kugu xun ninkaan intaa lagu dilay canshuur keena lagu dilay ninkii dilayna waa baxsadaa la yidhi ninkii labaad waa nagala dilooy wixii lagu dilaana laga rabaa ninkii dilayna waa milishibi noola sheegay waana baxsadaa la leeyahay waata bari waa la yidhaha wax kale loogu dara maaqaan darweylinaan anaga gaadiid waa weynu wadaa maalin kasta ninaa saas lagu dilaa waa baxsan la yidhaha waxaas aqli miya intaas aadi karabnaa bis waxaan dalbanaa in cadaaladdan noola soo saaro miiska noola soo saaro oo ninkii dilay ninka noola keeno laba nin waa xataa ninka hore ninaa dilay ninkii dilan waa la leeyahay in la keeno labadooda intaa lagu dilaa waxaa soo dhex galay dekaduu ka soo baxay wuxuu yidhi turismadaraala istaagaa la yidhi waa istaagay jidkanka baakinka galaa uu yidhi jaamanka baxa jidkanka baxa uu yidhi intii aba loo kaadin waayo waa kubaasaa uu siidaaday habaduu dha ku dhahay haas aqli soconays ma noqee ninka askari waayo meela laga soo diray ma lahayo aqli ma noqee daduu ka dhashay meeshaan iisa aqli ma noqonaysa waxaan ka codsanayna dawladda in ninkii gacanta noogu keenaan waxaan ka rabnaa daraawaliinta dekadda ka shaqaysaanahay isaga annaga waa ku dhibaataysana magaaladan rafaad inta leen ku qabnaa cadaalad xumaan nagu hayso wax allaale wixii jawi ay jirin iyo dawladda aan u sheegayna anaga wax allaale wax kasta ka dhacdaba wax allaale wax rabta noqoto maalin kasta nina naga dhinta anaga waxaasna waxaan anaga u dul qaadan karno manaan haddaan qori qaadayna loo sheego haddii kale aan imaano ummad ilaahay la midna dara waayo waxaan uga daran hamaalindaanaya in la rafaado ma rabno anaga canshuur wax li kasta waa dhiibnaa laamiga aan ku soona lacagana laga qaadaa hal xabba kale kama rabno anaga dawladda wax allaale wixii anaga dulmi nagu hay inay naga qabtaan aan ka rabnaa wax kalena kama rabno horta maanta waxa u taagannahay baqma ninka askari waayo meela laga soo diray ma lahayo aqli ma noqee daduu ka dhashay meeshaan iisa aqli ma noqonaysa waxaan ka codsanayna dawladda in ninkii gacanta noogu keenaan waxaan ka rabnaa daraawaliinta dekadda ka shaqaysaanahay isaga annaga waa ku dhibaataysana magaaladan rafaad inta leen ku qabnaa cadaalad xumaan nagu hayso wax allaale wixii jawi ay jirin iyo dawladda aan u sheegayna anaga wax allaale wax kasta ka dhacdaba wax allaale wax rabta noqoto maalin kasta nina naga dhinta anaga waxaasna waxaan anaga u dul qaadan karno manaan haddaan qori qaadayna loo sheego haddii kale aan imaano ummad ilaahay la midna dara waayo waxaan uga daran hamaalindaanaya in la rafaado ma rabno anaga canshuur wax li kasta waa dhiibnaa laamiga aan ku soona lacagana laga qaadaa
hal xabba kale kama rabno annaga dawladda wax allaale wixii annaga dulmi nagu hay inay naga qabtaan aan ka rabnaa wax kalena kama rabno horta maanta waxa u taagannahay baqma waa tahay daawadayaal waxaa intaas inooga dhan warkeennii waad kala socoteen shabakada warar TV intaynu ku kulmi doonno warkeennan mid ka xiga waa bahda shabakada warar TV oo isku duuban oo idinla dhammaantiinba sidaas iyo nabadgelyo